qodobo kala duwan oo ku saabsan ciyaaraha. Sidoo kale waxaan eegi doonaa bal ciyaaryahanada xalay cid la xiriirinayay iyo inay kooxahooda ka tagi doonaan. Ciyaaryahan Alex Benana la yiraahdo oo ciyaara kooxda Villarreal waa ciyaaryahan weerarna gala dhexdana ka ciyaara. Waxaanu ka mid yahay ciyaaryahanada imika ugu wanaagsan kooxda Villarreal. Waxa uu doonaya inuu ka tago kooxdan isla markaasina uu ku biiro kooxda Barcelona. Wuxuu yiri Barcelona inaanu ciyaaro wariyooyinkaygu ugu waaweyn ee kubadda cagta. Fikirkaygana kooxdan Barcelona waxay ka mid tahay kooxda adduunka ugu weyn. Ninkan kooxdan Barcelona aad u jecel yahay saas uu amaanay. Waxa uu sheegay in magaranaysa uu doonayo kooxdaasi inuu tago. Qiimihiisa ayaa 60 milyan inkastoo kooxda Barcelona imika ay musallaftay oo aanay waxba haynin iyada lafteedu suuq ku xun yahay oo ciyaaryahano laga tagay iyo dad noocaas ah intii dambe soo qaadanayeen. Ciyaaryahankan qiimihiisa uu hooseeya waa 60 bal markaa Barcelona inay iibsan karto ayaa iyada lafteedu meesha ku jirta. Tababar Pep Guardiola ayaa ka hadlay dhaawac soo gaaray Anderson goolhayaha reer Brazil ayuu Pep sheegay inuu dhaawaciisu u muuqdo mid halis ah isla markaasina aanu ayaamahan ka soo muuqan doonin garoomada inkastoo uu sheegay in xaaladiisa lala socon doono. Laakiin ninkan ayaamahan dhaawacyo hadheeyay in dhawaato muddo maqnaa haddana imika wuu dhaawacmay. Marka bal wuxuu yiri xaaladiisa waa eegi doonaa sida ay noqoto. Laakiin wuxuu dhaawaciisu mid culus ayuu u muuqdaa. Kooxda Manchester United waa ognahay xaaladeedu inta dambe allow sahal weeye meel ay u socotaa ma jirto. Kaalinta 6 iyo 7 ayay ku meeraysataa. Sidoo kalena sanadkan waxa ay ku guuldareysatay inay ka soo qayb gasho ama ciyaarto horyaalka qaaradaha Yurub ee Champions League. Wayna ka hadhay oo afarta sare ee kooxooda ka qayb galaya kama mid noqon doonto. Tababarahan oo muddo kooxdan ay doondoonaysa imika tababaraha oo ah Ten Hag la yiraahdo ayaa imika taageerayaasha kooxda aad bay uga soo horjeedaan sababtoo wax guulaa ma keenin. Bedelkiisana inta badan aad bay u canaantanayo waxyaalaha uu kooxda doonayo inuu ku bedelo inkastoo isagu aaminsan yahay inuu si fiican u wado ciyaaryahano fiican oo wadi kara kooxda Manchester United-na uu haysto. Hase yeeshee nimanka Manchester United imika waxa leeyahay suuq ay ku jiraan tababaro cusub doonayaan. Tababarayaasha lala xiriirinayo waxaa ka mid ah Antonio Conte tababarihii hore kooxda Chelsea. Sidoo kale kooxdan haddii aynu eegno inaanay xaaladeedu fiicnayn kulamada ay ciyaareen oo dhan ama ciyaaraha ay ciyaareen kulligood waxay galeen 7 barbardhac 17 gool darrona dhabarka loo saaray 23 goolood bay gaareen 47 goolna way dhaliyeen. Marka xaaladooda iyada ma sahlana nimankii meel cidhiidhi bay ku jiraan. Tababarahana sida aynu sheegnay taageerayaashu xoog bay ugu soo horjeedaan. Marka iyaga laftoodu tababaro cusub ay doonayaan balaleeyahay laakiin waa arki doona waxyaalaha ka soo kordha. Haddii aynu eegno Nicholas Williams weeraryahanka kooxda Atletico Bilbao. Horta kooxda Atletico Bilbao inta badan ciyaaryahanimadu ma ciyaaraan. Wax la isaga iyo walaalkii ayaa wax madow u ciyaara. Inta kale wax lagu leeyahay waa ciyaaryahano habar wadaag ilmaadeer wax wada noocaas. Marka labada nin walaalaha William iyo walaalkii ayaa kooxdan u ciyaara. Habeen dhawaato wala cunsurideeyay oo taageerayaasha kooxda Atletico Madrid ay la ciyaarayeen ayaa daanyeer iyo wax ku sheegay isaga hadlay. Marka wuxuu yiri wax caadi ah maaha in midabka jirkaaga lagu caayo. Arrinta waxa sameeyay dad bilaa idaaba meelo badanna way joogaan adduunyada laakiin iyaga laftooda waa inaan bedelo ayuu yiri. Wuxuu yiri ciyaaryahanada Atletico Madrid wayna garab istaageen wayna caawiyeen markii qaylada cayda ee daanyeer batay waxyaalo noocaas oo kale ayna lahaayeen qaar taageerayaasha ka mid ah. Waan arkayay buu yiri 3 nin ayaa horteeda ku qaylinayay. Arrintaasna arrin la aqbali karo maaha. Horta hadii jeer way soo noqotaa magaranaysaa in midabka la isku cunsuridayo oo ciyaaryahanada qaar la caayo. Ninkan Real Madrid oo ciyaaraya Junior la yiraahdo ayaa qaylo meedhana mar allaaliya markaa taageerayaasha kooxaha kala qaayeen isagoo garoonka uu gali lafaa. Laakiin ciyaaryahanada qaar way iska dulqaataan hadal macquul ah bay yiraahdaan. Marka ninkan Williamsna isagoo si macquul ah u hadlo xilaa adduunyada loogama baahna magaranaysaa dad cunsuriyiin waxa loo baahan yahay dadka inaan jirkooda iyo midabkooda midna wax laga sheegin. Kubadiisina wuu soo watay goolna wuu dhaliyay. Marka kubadda wali cunsuriyadaasi waa ka jirtaa meelo badanna way ka dhacdaa. Laakiin mustaqbalka waxa markasta la rajayaa in hawshaasi laga dhamaado. Laakiin bal waa arki doona iyada lafteeda sida adduunyadu isugu raacdo hawshan. Waan ognahay horyaalka Premier League Ingiriiska sanadka waa ciriiri
dabada la iskula jiraa iminka kooxaha Arsenal iyo Man City ayaa xoog u xiriirsan Pep Guardiola wuxuu yiri cid kasta lumin karta dhibco cid kasta barbaro geli karta wali horyaalka waxa weey waa la isku jiraa ma aaminsan inaan ku guuleysanay laakiin ilaa minadka u dambeysana waa dagaalamana Mikel Arteta isaguna waxa uu sheegay inay khasab tahay inay badiyaan laakiin wuxuu yiri kubadda marmarka qaar khaladaad ba ka dhaca isagoo si raacay goolkii khaladka ah oo shalay ku galay goolhayihiisa Raya kaas oo khalad ku sameeyay gool looga faa'iideystay ayuu ka hadlayay marka wuxuu yiri dhacdooyinka kubadda ayay ka mid tahay inaad khaladaad gasho laakiin maadaama aad horyaalka u tartamayso waa inaad iska ilaaliso khaladaadka aad geliso isagoo si dadban ula hadlay ciyaaryahanadiisa oo laha kubadaha inagu khaldeenana u jeeday marka labadan kooxood wali aad bay iskugu maran yihiin bal horyaalka Premier League sanadku halkuu jilba dhigtona dhowrka ciyaarada soo aadan ayaa la ogaan doonaa